xisbiga mucaaradka wadani ayaa magaalada Hargeysa xaflad soo dhaweeyna waxa uu ku qabtay siyaasiyiin ku soo biiray xisbigaasi. Siyaasiyiintan ayaa waxay sheegeen inay la shaqeyn doonaan xisbiga mucaaradka wadani waxaana hadaladoodii kamid ahaa. waxaan ahaa nin siyaasi ah oo ku raagay siyaasadda oo qoraallo badan qoray oo uu ka mid ahaa تحفة المشتاق للنسب سيد إسحاق أنا أقول ريرا وما كلا قاد يا باشا وما قان إن تكالي وحنو قري تاريخ دي قرصوني الصومالي لان وحن هيا بوكي أما بتيشنكي أي صوت صحيحين سلطان عبد الله سلطان ديرية سلطان عبد الرحمن سلطان ديرية مايكل مريمو يدب علي يري ننا كمان آمنين ومن الديبين متجوغية مت هربا وحنون ديبيا نيك الله يلاحظو عبد الرحمن أيا أقلمه أورتبوغان سينا يا دي الله يلاحظو اعتراف كينا وصوص عدا وإلهي أجي labada magac ee xisbiyada ay ka tartamaya markaad eegto mid waa ka laga soo guuray oo waa kulmiye magaciisa wuxuu isu bedelayna way idin sheegi doonaa midna waa xisbiga horumarka iyo guusha waa karaynu nimo xisbiga wadani horaa loo sheegay oo wadani qoraalkiisa markaad aragto waa xisbiga wada jirka xisbiga wada laanshaha xisbiga wada tashiga xisbiga wada dhiska xisbiga wada aqoonsiga gudoomiyaha xisbiga wadani oo sanadkaasi ka hadlay ayaa sheegay in farxad gelinayso siyaasiyiinta ku soo biiray xisbigiisa waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan runtii maamuus milgo iyo farxad bay ah inaan ka soo qayb galo munaasabadan asaga ka arkayseen 20 xubnood oo Somaliland ah oo siyaasiyiintii ugu caansanaa oo xildhibaanadii ugu caansanaa oo hablihii ugu caansanaa oo halkan maanta xoogooda iyo caqligooda iyo tabartooda iyo xoolahoodaba ku soo biiriyey waxa ummaddu doonayso waa isbeddel aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa